waxaa diyaara baa la yidhi boqolkiiba 50 haddii fursad helaan inay baxaan inay iska baxaan boqolkiiba 80 waa dhalinyaro iska diyaarka inay baxaan ka taasina waa midda kale dhacday midda afraad ee dhacday waxa weeyaan qaawanaan siyaasadeed baa ku dhacday oo waxaa dhacday in Israa'iil adduunka oo dhan oo ka soo horjeestay oo weli taariikhda aan ka dhicin arrinta shanaad ee ugu dambaysa waxa weeyaan inay ka dhacday Israa'iil arrin aad u adag oo taariikhdeeda weli arag waxaa la ogaaday inaynan haysan hub ay ku dagaalami karto wax ka badan bil ay u baahan tahay inuu hubku sii daba jooga ugu yimaado uu soo siiyo marka iyadoo hub baan samaystaa bay oran jirtay sida ay markaa Turkigu dhahdo boqolkiiba 80 waan sameeyaa hubkayga marka hubkay samaysanaysa u difaaci waayay oo ay hub u dalbato iyadoo la dagaalamaysa jabhad waxaasoo dhan baa soo baxday marka insha Allah marka la qiimeeyo waa tahay dabcan Xamaas markii October 7 ay weerarka qaadaysay ahdaaf ayaa ka dambeysay iyo dambay lahayd inay gaarto ahdaaftaasi maxay ahaayeen mayse gaadhay ahdaafteedii اوكي horta Cabdirasaaq waa su'aal aad u wanaagsan ustaadkaygii ninkii Sinwar la oranayay khudbad buu akhriyay lagu soo celceliyay imika wuxuu yiri waxaan gali doonaa wuxuu yiri 2 sano ka hor intayna dhicin 10 October 2 sano ka hor waxaan gali doonaa buu dagaal keensan doona inaan dhaawac dhabar jab ah Israa'iil u geysano waxaan keensan doonaa buu in aan mujtamaca bulshada caalamiga ah inaan ka hor keeno Israa'iil si ay weligeed ugu horimaan oo Israa'iil meel noqoto bulshada caalamkuna meesha kale ay noqoto marka ninkaasi istiraatiijiyada buu dhigay muddo 2 sano ka horeysay dagaalkan ninkana mar hore markii taxliilna wuxuu ahaa nin oo xadhiga ku raagay iskuulna ku bartay xadhiga dhexdiisa jaamacada kaga soo baxay afka ibrigana xoog u bartay luqadda yuhuudda isla markaasina bartay aqliga qofka yuhuudga soo fikiro iyo aqliga caalamiga ah marka istiraatiijiyada laga hadlay iska caadiga ma aha labada waaweyn ee uu isagu sheegay waa labadaas wuxuu yiri inay argagax ay ku dhacdo dawladdu labo inuu adduunka oo dhan ka hor yimaado labadii ma dhacday mise ma dhicin markaan orano argagax uu dhacay adduunkiina uu ku yimid oo waxaad arkaysay Netanyahu qodobadana oo looga dareeray meeshii waxaad arkaysa inay dawlado fara badan soo bandhigayaan in Israa'iil cilaaqada loo gooyo oo ay bilowday Isbaanishka waxaad arkaysaa inay wadana soo bandhigayaan in ciidan la sameeyo difaaca Falastiiniinta oo caalami ah Colombia wadana soo bandhigayaan waxaad arkaysaa inay dawlado badan oo European ay ictiraafeen dawladda Falastiin haddii aynan jirin arrintan dhacday 7 October ictiraafka lama hadal qaadeen لأن صدق سنة هي إسرائيل هشيش لا وضع ولا وضع عباسي فتح يا لا وضع حنا كيرجل لكن تنا مركا كانتي مركا أرجع عن كل عادي أوجا يلا هي إنه أرجع عن إذا كان كل عدون لوق ولا بابي دونه لكن وين قد يده دي بوصل نقطة لا بقى ريموت بتذكر أي شجعان وحي شجعان إن قد يده فلسطين لإلوبي تمرك سنة قدام بس لا بقى إن لا يسكت إن لا نافوا أو فلسطين لإلوبي ولا نافوا oo Ibraahimiya la bilaabo wax kale laga hadlo marka wuxuu waxay lahayd in lagu soo cisho Falastiin meesheedii inay tahay qadiyada ugu weyn adduunka iyo inay tahay qadiyada Carabta iyo Muslimiinta ugu culus labadina way soo noqotay walidaalka imika qof kasta wuxuu leeyahay suurtagal ma aha nabad inay dhacdo iyadoo Falastiin ay xorriyadeedii marka taas ay maartay barnaamijka loo sameeyay 7 October marka waxaad leedahay qiimeyntaada Xamaas ahdaafteedu waa ku guuleysatay way gaadhay saa'ila tahay waa tahay dhanka kale markii dagaalka ay qaadaysay Israa'iil idan ahdaaf oo waliba cad bay samaysatay ahdaaftaasi maxay ahaayeen meesha gaadhay ahdaaftu waxay ahaayeen saddex waaweyn oo ku saabsan Gaza iyo labo ku saabsan Falastiin iyo haayeen saddexda waaweyn oo Gaza ku saabsan waxay ahaayeen waxay qoreen maalintii labaad baan xaqiijinaa maxaa ka dhigay in Gaza laga tirtiro Xamaas لمبر 1 تابعت مركا تابع لمبر 2 waxay dhahdeen in awooda Xamaas ay leedahay in la tirtiro oo ciidanka talabaad arinta saddexaad waxay ahayd in Gaza laga eriyo shacbiga Falastiin وساكو قاتان اليوم التالي waxay ahayd inay dhamaato meel la yiraahdo Gaza
لان غزه بروبلم بيكون هيساعد دوله اسرائيل نين الاورنجري شارون وحو اورنجري waxaan jecelahay inaan subax soo sara kaco oo soo kaco badoo liqday غزه بروبلم meesha biyo noqotay biyo noqotay marka saas ay ahayd laakiin laba istiraatiijiyadood oo muuqan baa jirtay istiraatiijiyada muuqan waxa weeyaan waa taa in qadiyada Falastiin baa la ilaawo oo difa alqarbiyana laga takhaluso فتحنا laga takhaluso Abbas laga takhaluso taasi bay ahayd midda kale waxay ahayd in la bilaabo sharq al-awsat al-jadid oo ah Israa'iil kubra in Israa'iil tiwilid la sameeyo si aan taasi u dhacdo waa inay garaacaan Gaza si ay dadku u naxaan oo muslimiinta iyo carabta u argagaxaan saabina marka ahdaafta shanta يا سميستay iyo hostejada soo furatay ma xaqiiqsatay waxa jirtay in la soo furo dadkii la qaatay استراتيجي هدف بحد لكن ما suurta gashay ma suurta galin Hamas waxay yiraahdeen dadkaasi waxa ku soo qaadanaysiin nabad kuma helaysiin xoog imikana inta heleen waa nabad bay ku heleen dhowr qof wuxuu ku qaateen dadkan mid bay hayeen ma badnayn marka waa taasi waa midda koobaad weeyaan ma xaqiiqsan hadaftii ay doonayeen midda labaad oo khalista ah waxa weeyaan Hamas way dhaawaceen laakiin kama takhalusin markii ugu horeysay xitaa Faransiiska Ingiriiska Mareykanka waxay yiraahdeen waa in laga takhaluso laakiin markii waxay yiraahdeen ma suurta galayso maxaa yeelay Hamas waa fikrad laga takhaluso marka arrimihii waxa la dhahdaa iminka nin baa qoray maqaal Mareykan wuxuu yiri Israa'iil lam tantasir wa khasirat ruuxaha Israa'iil ma guuleysan waxayna weyday ruuxdeedii نفتيدي ويدي يعني عظمتي وينانتيدي ويدي وحوري حماس لم تنتصر حماس مقوليسن لكن بقوا في أرضهم لوكو يجوا لوكو يلقى مكحي waxba ma soo kordhin laakiin meeshooda way joogaan ay joogaan meeshooda yatashabbathun ku dhigsan yihiin marka mucaadaladu asaas waa tahay dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in Hamas ay sameysay ismaqiiq siyaasadeed arrimahaasi maxaa ka jira horta waxa aaminsan dad fara badan waxa aaminsan saddex qolada koobaad waxa la yiraahdaa istiraatiijiyiinta waaweyn waxay aaminsan yihiin nin la yiraahdo Abdullah Nufaysi wuxuu aaminsan yahay inay Hamas ismaqiiqday wuxuuna aaminsan yahay ninka weyn ee aqliga badan wax aqliga ka hor imanaya wuxuu yiri saddex noo qorata qarar kana qaadatay قرارك حماس هي سنوار يا لمنين ضيفيو صدح نبا قادتي بولي نين افك كو هادلا حماس مeel dhaweyto wuxuu yiri waxa si sheeka caruureed weeyaan buuli arintan waxaan dhignay buuli 2012 qorshahan laakiin waxaan la sugaynay duruufta kolba duruufta isbedelaysi buuli markaasi urur inta isku difaacay oo saas sameeyay oo xataa oo saan sheegi doono Netanyahu oo waxa jira Trump oo اعترافين yihiin dad aqli badan inuu yiraahdo saddex nin baa qararka inta laga taariikhiga qaadatay maanta ila yaraaday sheekha ninkaas mufakirka weyn ah laakiin wuxuu aaminsan yahay inay ismaqiiqeen waxa kale oo aaminsan inay ismaqiiqeen dawladaha carabta madaxdooda waxayna leeyihiin maxay noo la tashan waayeen 19 sano ku jiraan tajwiic iyo cunaqabatayn maxay u qabteen si loo tashado waxba qaban kaleeto marka gubernimo la doonayo gubernimo doonku waxay la tashadaan dadka gubisanaya ama dadka ku daawanaya ama tashada marka iyagoo maqiiq bay rumaysan qolada saddexaad ee maqiiq rumaysan waxa weeyaan wadamada reer galbeedka dadka istiraatiijiga waxay rumaysan yihiin in aynan tanaadur ayna ka dhaxayn labada quwadood quwadda weyn Israa'iil iyo quwadda Hamas miisaan ma dhaxayo isma mucaadalin karaan marka inay dagaal ka galaan taana waxa lagu radiyay aqliyan waxa la yiri marna dadka jabhadihii la awood ma aha dawladaha صحيح Vietnam Mareykan la awood ma ahayn Jazaa'iriyiinta Algeeriyaanku Faransiiska la awood ma ahayn وين iska celinayeen wayna dagaalameen waana waqtigan waa la oran jiray way ismeeyqayaan Umar al-Mukhtar la awood ma ahayn Talyaaniga sayidkuna la awood ma ahayn Ingiriiska صحيح laakiin taariikhda wuxuu ku galay sayidku inuu dagaalka galay kuma galin inuu guuleystay kuma galin inuu guuleystay difaacay buu ku galay Umar al-Mukhtar guul ma gaadhin laakiin wuxuu ku taariikhda ku galay inuu diyaariyay kuwa dambe gobolada gaari doona
saasoo kale sayidkuna diyaariye saasoo kale un buu ahaa ninka kaleeta ee maaragtay jazaa'irna cabdiqaadir jazaa'ir markuu dagaalamayay 9 nin buu sitay bilowgii ninka qasaam dhahdo oo suuriga ah markuu Israa'iil Falastiin markii la qabsaday uu ka dagaalamayay 12 nin buu soo qaatay 12 muxuu ku guuleysan karaa laakiin waa hakada luqadda gobonnimadoonka waa saas laakiin luqadani ciidamada dowladaha la isku eegaa ma isku awoodba ma isku laakiin jabhad iyo dowlad luqadda dabadoonka taas sax weeyaan marka miqiiq ma jirin laakiin waxay ahayd istiraatiijiyada weyn ee la dhigay ee guul weyn soo hoysay khasaaro weyn keentay wadaha laga laabanay laakiin waxay dhahdaa qiimeyntu waa goorma in waxaan qiimeynaa wax la dhacay laakiin qiimeynta runta Cabdirasaaq waa goorma waa marka dagaalku istaago ee sanad iyo 2 sano kadib gaadaal loo eego oo ay qiimeeyaan dad kala duwan oo khubar kala duwan baa qiimeyn doona oran doona waxaasina khalad buu ahaa waxaasina farac wanaag buu ahaa natiijooyin waxay ka soo baxayna la daraaseeyo saxiix naam waa tahay shaqi markaan isbarbar dhigno Hamas ahdaafteeda iyo tan Israa'iil ay samaysatay labada ahdaaf kaba guuleystay horta dad fara badan markay taxliilayaan waxay ka soo qaadaan siraaca dhan ee Gaza inuu bilaabmay 7 Oktoobar 2 sano ka hor taasina waa muqaalada taariikhiya nin baa halka ku haya baqaal cajiiba ku qoray جزيرة نت oo la yiraahdo Dr. Amar Ali Hassan wuxuu qoray toddoba qalad oo laga galay qadiyada Falastiin Gaza maaha qadiyada Falastiin Gaza maaha toddoba Oktoobar bilaabay waxay bilaabatay 1974 ama 48 iyo bilaabatay waa 8 sano waxay socotay laamka marka 8 sano qadid socotay baa laga dhigayaa inay tani bilaabatay waa maxata waa marxalad kamid ah maraaxiishii loolanka marka haddii la yiraahdo la isba bardhigo dhibaatada weyn ee ku dhacday Gaza wali taariikhda Falastiin ma dhicin hatta 48 sano ma dhicin hada ku dhacay waxa maanta ku dhacay bal dagaalkii labadii adduunka dibadii ma dhicin waxa dhacay bal waxaan dhihi karnaa meel yaro intan leeg oo saddex arrimood baan lahayn dad ay dhabarka u hayaan oo gargaariya male oo walaalahooda buuro ay ku dhuuntaanna male kayna ku galaan ku dhuuntaanna male way qaawan yihiin wana dagaalamayaan inay dadku meesha ay ku dagaalamaan waxay ka dhigan tahay nasriga dhinaca kalena waxay ka dhigan tahay waxay soo saartay cadowtinimada weyn ee ku jirta dadka dhulka haysta oo ah inaynu u naxayn dhagax buur qof bini aadan waxbana ay ka naxayn waxaana loogu talagalay inay dadka ka dambeeya Falastiin ay xabsadaan carabta ilayka acni wey adaan kuu jeeda saasan ku yeeli karaa waa tahay sheekhi jazakallah khair waxaan u gudbaynaa marka intaasi haddii aan kaga hadalno dagaaladii iyo labada sano socday iyo waxyaabahaasi madaxweyne Trump ayaa wuxuu la yimid qorshahaasi oo ka kooban 20 qodob qorshahan muxuu ka dhigan yahay marka ugu horeysa horta qorshaha hadaf uu leeyahay hadafka uu leeyahay wax weeyaan waa qorsho loo sameeyay dagaalka in la joojiyo dagaalka lagu joojiyo lambar 2 waa inuu helo abaalmarinta Nobelka Trump lambarka 3 waa inuu badbaadiyo dowladda Israa'iil oo ka badbaadiyo ceebaha kana badbaadiyo Netanyahu qolada midigta iyo ka badbaadinaya wadanka Israa'iil leedahay arinta afraad wuxuu rabaa in mashruucii uu ka rabay Gaza inay hirgasho oo ah in Gaza loo dhiibo Tony Blair oo kadibna laga soo qaado mandiqad dhaqaale iyo barwaaqo samaysa dadka Falastiin marka loo ogolaado inay iska bixi karaan adduunkana la geyn karo meesha doonaan arinta afraad wuxuu rabaa in hubka laga dhigo Hamas arinta shanaad oo ugu adagna waxa weeyaan in aanan hadeeto wax hadida Hamas in Israa'iil ayna bariga dhexe ka dhicin waxaas oo dhan ba ahdaaftu ay ahaayeen marka in la soo celiyo dadkii xidhnaa maartay Israa'iil
aad baa loo hadal qaadaya laakiin falastiinta xidhan ma hadal qaadaya isagu in la dhiso oo maaragtay la hagaajiyo oo ummad si fiican ma hadal qaadayo waxaa kaloo ka mid ah in ay Gaza mar dambe noqon meel hadida Israa'iil waxaa kaloo ka mid ah in la furo albaabkii heshiiska Israa'iil iyo Carabta tadbiici waxaas oo dhan waa ahdaafta qorshaha laakiin qorshaha maxaa ku dhex jira saddex shay waxaa ku jira hog badan oo lagu daadanayo fakh Xamaas loogu talagalay Carabta loogu talagalay inay ku dhacaan waxaa kale oo ku jira waxyaalooyin fara badan oo keensan doona hadhow toole in aanan laga maarmin in lala heshiiyo Israa'iil gol xaad arrin saddexaad oo adag baa jirta oo ah in aanan la xidhin mashruucii ahaa Israa'iil kubra weli open ahaado maxaa yeelay waxaa loogu talagalay mashruucii la oran jiray Sykes Biko ee Carabta lagu qaybiyey waxay leeyihiin Sykes Biko cusub oo in la sameeyo waliba inta uu Trump madaxweynaha yahay wata marka taas waxa soo dhanba ku dhex jira meesha ku dhex jirta ma la oran karaa iyadana sidoo kale intaad sheegtay ma lagu dari karaa in اعترافك soo tarahaya dawladii waaweynaa Yurub ay اعترافyaan Falastiin in looga hortagayo dawladda Falastiin ay meesha ka dhalato walqaw fihi in la mashquuli waxa la arkay inay xoog badan ay dhakan u socdaan mid kale waxa jirta Abdirazaaq khatar oo saado ta khatartii waxa weeyaan Falastiiniyiinta waxa weeyaan waxa loo ballan qaaday in dawlad la siiyo Israa'iil garab taala oo dhulkii maartay 67 la qabsaday maantana dhulkii xitaa la qabsaday boqolkiiba 30 dib baa loo qaatay istiitaan wax dhaal sameeyay qudus tii sharqiga ahayd ee la siin lahaa boqolkiiba 60 waa la qaatay marka meel oo loogu talagalay in ay soo dagaan iyadana ma jirto marka waxa laga fikiray wax weeyaan in Falastiiniinta la geeyo Urdun iyo Saynaaga Masar intana la faaruqiyo difada iyo laga saaro Gaza laga saaro bal waxa jirta khuddo ah in xitaa Urdun la qabto waxa soo dhan waa shaqo soo socoto waa tahay oo le fariiqamo qodna faan wala maqli jiray midda kale heshiiska markii uu sameeyay wuxuu maray laba jaro odaygu oday khatar ah horta markii hore dawladaha muslimka wala shaqeysay 8 dawladood arinta buu kala hadlay heshiiska way qoreen toodii buu qaaday wuxuu la fadhiistay ninkii la oran jiray muxuu ahaa Netanyahu markuu la fadhiistay uu shirka la galay wixii qorshii halkan yaalay uu bedelay qorshahan imika la soo bandhigay waa Trump iyo Netanyahu tii ma jirto odayaasha ma jiraan wayna ka caroodeen imika heshiiska waxa ku soo biirtay Turkiga dhadhaxadinta ugu Masar maxay hayeen iyo Qatar imika Turkiga ku soo biiray markii arkeen waxay dhahdeen waxaan isku ogeyn ma oo wax kale cusub سادرادد بكعرسي فعلا اوكي marka dabcan wax baad ka taabatay ya aqliyada ka dambeysay 20 kan qodob oo tuma ahayd ma dawladahan hadda sheegtay ma Trump ba mise waa Israa'iil ba soo qodisay sidaas ku sameeyeen horta saddex badbaq uu ka soo baxay saddex jiko oo siyaasi ah ay ka soo baxday jikada koobaad Kushner inta la soo taqaan صدق والله صدق ترامب iyo ninka la yiraahdo Tony Blair waa jikada labaad waa Qatar iyo Masar iyo Turkiga jikada labaadna waa Israa'iil saddexaadna waa Israa'iil saddex jiko iyo ka soo baxday madbax laakiin madbax المطابخ jikada jikooyinku waa qalka aqalka baa dib u kariyay midigta fog baa korisay waxa kariyay maxaan ku dhahdaa Trump iyo Trumpismiga systemka imika cusub Trump oo adduunka u wado taaba aad u kariyay marka waxana uu ka qaatay kuwan wixiisina waa ku daray marka saasa karisto saabe u imatay nin walba wuxuu ku leeyahay basamaad laakiin basmada ugu dambaysa waxa iskale Trump iskale waa tahay hadaba heshiiskan isaga ah qodobo badan dabcan Hamas waa u fududahay inay ogolaadaan laakiin qaar baa ku adag marka muxuu uga dhigan yahay qorshahan Trump Hamas inay ogolaato wayna ogolaatay horta ogolaashaha Hamas waxa lagu sameeyay daraaso waxa ku sameeyay ilaa iyo dad aan ku qadaray 10 qof oo waaweyn waxa kamid ah Thomaskii Mareykanka ahaa waxa kamid ah rag Ingiriisa waxa kamid ah rag Carab ah
kullu waxay yidhahdeen inay ogolaato heshiiskan xamaas waa cabqariyad waa maskax siyaasiya oo bisalaatay weeyaan waay saddex shay bay eegeen number one shicibka falastiin uu daalay khaasatan gaza waana shicibkoogii waa xaadinadoodiina meeshii ay dhabtii ay fadhiyeen weeyaan dadkaas waxay rabaan inay nastaan waxay ka jawaabeen baahida dadkooga waa qodob labo iyaku inay waxay ishelaan iyakiiba iswaayey iminka dagaalka ku jira xataa dadkan la leeyahay soo fura meelay joogaan in badan ma ogo waa la kala baxsaday waa la kala dhuuntay waa inay dib isku soo helaan ay muddo ay helaan soo noolaan karaan hogaanka la soo celiyay saddex waxay rabaan inay jiho u jeediyaan falastiin maa bacda 7 Oktoobar taasina waxay u baahan tahay inay ka qayb galaan dadka aan xamaas ahayn shacbiga falastiin oo dhan hogaamiyaashooda waaweyn inay ka qayb galaan mas'alada lianna waa mas'alad masiiri ah mas'alada koox ka talin karto maaha si ay sidaa u yeelaan waxay yidhaahdeen waan ogolaanay heshiiska laakiin marka waxay yidhahdeen waan ogolaanay heshiiska markay yidhaahdeen markiiba u hadlay Trump wuxuu yidhi xamaas waxay muujisay bisayl isla markaasina waxay muujisay inay diyaar u tahay nabad u artaa anna waxaan ku guulaystay inaan joojiyo dagaal socday 3,000 sano hafaabi kari weero iska exaggeration baa ku jira yaana ku guulaystay marka de waa nin Nobelka u haraadan waa Nobelka la siiyay anu dadka waxaan ku jira Nobelka la siiyay si u farxay yani nabadna adduunka u nimato soo meeshana nooga marka midda koowaad waa midda weeyaan midda labaad oo cajiibka wax weeyaan in ay laakiinta waxay ku keeneen wixii wada ahaa boomkii qarxay oo dhan laakiinta ka dambaysa waxay yidhaahdeen waa in la sii daayo shuruudda ba ku xidhan waa in ciidanku ay ka baxaan shuruuddaas kala ku xidhan dadka waxaaba ku xidhan marka taasina wala su'aala ku yeela mal waa kamid tahay marka arimahaas ba iyo keeneen marka waxay la isku waafaqay inay ogolaato waa cabqariyad laakiin cabqariyadu kuma jirto inay ogolaato weligeed ba Falastiinta waa lagu yaqaanay khaasatan oo LBda oo PLOdi meelaha qaar heshiis ma ka galinaa bay dhaheen laakiin waxaa kamid waxay leedahay diideen inay hubka dhigaan waxay dhahdeen khad axmar taasi hub lama dhigayo waxaa kamid a inay yidhaahdeen wadanka looma dhiibayo Tony Blair waxaa loo dhiibayaa dad Falastiiniina oo tiknoqraad yaa u dhiibaynaa Gaza waxay yidhaahdeen Gaza kama talin karaan baba xataa Masar iyo Turki ma soo fargelin karaan waxaa soo fargelin kara qof Masri qof Falastiini marka waxaa soo dhan waa laakiinta ku jirta hase ahaatee bay ku jirtaa wixii ku horeeyna waa nacam isaga nacam baraal gelisay tara markii ugu horeysay laakiin markii dambe wuxuu ka qoray igistu soo qoray markii labaad wuxuu yidhi way ciyaarayaan xabaas markuu laakiintii akhriyay haddana markii saddexaad buu dib u qoray wuxuu yidhi haddii ay hirgeli waayaan wixii ay ku wala qaadeen waan fasaxi Israa'iil say u laayso dagaalku ilaa kiisa taageen shalay toole 8 qof dishay marka waa saas weeyaan dagaalku wuu socdaa dabcan marka xamaas haddaba 20 ka qodob waxaan rabaa inaad bal si oo yar faahfaahsan hadda waad ka soo laabatay maxay ogolaatay maxaa isku diidan yahay okay horta marka imika la fariistay meeshii loo jiray Sharm el-Sheikh ay soo miiskii la yimiday miiska marka hadaladani caamka ee 20 waa caam waa hadallo waaweyn oo qorqoran 1 2 3 laakiin daadhicintu fasil bay u baahan tahay fasishu waxay u baahan tahay khibrad lidalika waxa xasuusta nin wasiirka ahaan jiray mukhaabaraadka Israa'iil wuxuu qoray bari in al-arabi malul qofka carabkii uu daalaa mufaawadaadka dheer iyo dooda dheer ma karo waxay arkeen bayna ahayd BLAD laakiin maanta waxay arkeen dad dagaalkii meedaankana ku fiican doodiina ku fiican oo cabsanayn oo wuxuugana ka tanaazulan si aayara tanaazul hadday sameeyaana meel kale ka soo weecanaya oo wax kala dhigay ku sameeyaan waa taktiigay sameeyeen dad la yaqaanay arkeen walidaalika midba jaraa'id wuxuu qoray wuxuu yiri laba midba u keentay buri Xamaas inay san u dagaalanto inay Iiraaniintooda tababareen لأن بيرشيا قلت هو يقعد فارسينته أما وحولي وحا أكانتي
iimaanka iimaansan yihiin islaamka iyo dhulka ولذلك ninka loo Israa'iiliyan wuxuu yiri Hamas aqbali mayso mashruucan 100% maxayna u aqbalayn wuxuu ka hormaraya aqeedadooda marka taasi waa ta keentay inay iminka soo bandhigaan insixaabki waxay dhahdeen soo ma insixaabas Israa'iil soo dhulka kama kacayso ha khariidadii keenay kaartigi waa shalay oo dhan daraad oo dhan waxa laga bixi waayay kaartigi qorshe lagu insixaabay kaartigi sameeyna waa in halka gaartay ha marka toban qof soo sideyno waa inay inta baxaan ma damaanad ay ku baxaan inta markaan bixino inta waa inay ku baxaan dadka aan soo sideynino waxaan ku bilaabaynaa dadka masaakiinta ah dadka weyn maaha markii halka la isla joogay kaartigi laga soo baxay dadkii baa loo yimid dadkii waxay ka bilaabeen Marwan al-Barghusi waa maxay waa nin ururka ku jira Fatah waa ninka bedelaya Abbas waa ninka ugu shacbiyad badan Falastiin tadifada kaasay dhahnaa soo sidaa kala soo sidaa Hamasna kama tirsana ha waa Fatah soo isku fikrad ma haba waa nin cilmaani ah laakiin waa nin Falastiini kala soo sidaa dadka qaar waxay leeyihiin waa ninku intuu xinaabu wadaadoobayay leeyihiin xadiga iyo quraanka iska bedelay iyo qaar leeyihiin qaar kale waxay leeyihiin waa nin gobonimo doon oo wadani ah leena heshiin kara raggan marka iyagu waxay ka dhigayaan ragga waaweyn ee hayaan ee kolonelada ah waxay uga dhigayaan inaa Barquusi la soo sidayo Barquusi aad buu ugu bukooday marka waxa la soo sidayo la soo saaray sawirkiisa aad buu u bukooday oo jiran yahay aad marka ninka la soo sidayo ninka oo la soo sidayana saddex qoloba diyaar uma aha imaaraadkuna diyaar uma aha carabta qaarkood dawladda Falastiin diyaar ma aha laana wanikii bedilay Israa'iil diyaar ma aha waa mas'al adag meel adag ay Falastiin oo laakiin tiiba ku jirta marka Barquusi baa qaadanaya muddo dheer baa iyaguna waxay leeyihiin qofkan adag nin adag lagu soo sideeyaa marka waxa laga baqayaa inay yiraahdeen waa soo sideeynaa laakiin Falastiin waa ka saarayna wala musafirnaya taanu diiday waxay oranayaan may waa soo sideeynaa qasdan keenna qasdan waa meel lagu dili karay may taanu diiday waxay leeyihiin difada lagiyo magaaladiisa waa in lagiyo meesha u dhashay lagu celiyaa carruurtiisa loo geeyo meesha marka la geeyana doorasha soo dhow bacda sanad oo Falastiin ka dhacaysa doorashada ayuu la gali doonaa isaga gali doonaa wuxuu la gali doonaa doorashada Abbas una ka guulaysan doonaa marka waxaas oo dhan yaa meesha jirta taasina waa mid kale midda saddexaad oo kale oo miiska taalo oo adag oo waxa weeyaan waa qadiyada ku saabsan hubka waxay leeyihiin hubkan mas'alad ay ka hadli karaan dadku maaha waxa ka hadlaya Falastiiniinta u taala hadday shacbiga Falastiin naga yiraahdo hubka dhiga aan dhigana isaga la dagaalameen aan afti laga qaadaya ayaa kala qaadafti magana kan uma tahay inay kan ima taalo marka waxaas xagga ka socota baa adag weeyaan waa tahay marka ma la dhihi karaa Hamas mufawadaadka si istiraatiijig ah ayay u galaysaa oo ay doonayso danaheeda inay ku fushato dagaaladan ay ku istaagaan saaka waxa soo baxay hadii la dilo shashada waxa soo baxay hadii la dilo ragga mufawadaadka ku jira siyaabada lagu dili karaa buugta sun maxay ragga ilaalinaya dadka waxa lagu amray inay ku dilaan Israa'iiliyiinta mufawadaadka ku jirta isla markaa inay dilaan ayna ag jooga rag baa la yidhi in ragga ag jooga haddaad aragtiin qof wax ku dhaceen waa inuu qof socdo marka si walba oo wax u dhici karaan way ka fikirayaan si walba wax u dhici karaan marka si istiraatiiji u dagaalamayaan mafaahiimta la isku haysto iminka waxaa ka mid ah mafhuumka security doodu ma ka jirta mafhuumka la yiraahdo al-insixaab waa in dib u gurashada maxaa looga jeedaa dib u gurashada intee laga guranaya waxaa la isku haystaa tahdiid Hamas waxay bedelaysaa way hadiyada Israa'iil yaa wax hadidaya Israa'iil ma hadiyaysa Falastiin wixii ay soo qoreen oo dhan baa sida kale loo dhigay waxayna ka socotaa mafaahiimtaas baa iyo dooda ka socotaa iminka si istiraatiiji ka socotaa waa tahay injinka waxa dhan marka gadaal ka riixaya injinka gadaal ka riixaya ama motorka ka dambeeya waa Trump haddana mar dhow wuxuu ku dhawaaqay inuu tagi doono bariga dhexe maxay ka dhigan tahay tagitaanka Trump wuxuu raadinayaa horta Trump waa nin culus weeyaan wuxuu yiri bariga dhexe iyaan soo baxaya gaar ahaan wuxuu soo baxaya Masar su'aal baa la weydiiyay waxa la qasam ma tagaysaa ya hay duruuftan ay doonaa buu inaan qas tago iyo kale
dad fara badan waxay leeyihiin u aadi doonaa qazana u tagi doonaa marka inuu yimaado meeshan bariga dhexe laba hadaf oo waaweyn buu ka leeyahay hadafka koobaad inuu xaqiijiyo inuu yahay ninka nabadda keenay adduunku soo jeedinaya hadafka labaad uu ka leeyahay waxa weeyaan waa arrintaa kuu sheegay ahayd Sykes Picot labaad baa la qoraya wuxuuna yidhi bariga dhexe siduu u samaysan yahay maaha si saxa nin kale oo Israa'iiliya maanta waxaan ka dhageysanaya cajiib ah oo mukhaabaraadka weyn ku jira wuxuu yidhi bariga dhexe dawladda kama jiraan waa reero annaka dawladda ka dhignay weli ingiriis iyo maraykan dawladda ka dhigay weli waa in dib loogu laamo maxaa loogu laami waa in reernimadii lagu cesho walidaalika waxaa laga fikirayaa sidii loo abuuri lahaa duwaylaad fi daakhil duwala ku hada jira ka siyar yar waa reerahayda imika soo reero looma dhiibin qatar iyo baxrayn iyo imaaraat waa reeraha loo dhiibay limaada ma masar reero ugu dhiibi laanahay limaada ma suuriya reero ugu dhiibi laanahay limaada ma libnaan reero ugu dhiibi laanahay waay maxaa ka jira ciraaq waa inaan reero u dhiibno asalkoogii waa reeraha bay leeyihiin ninkaasoo abuuri laysat hunaaka duwal fi sharq awsat wa inamaa hiya wuxuu yidhi cashaa'ir waa reero marka reerana dawlad ma noqdaan marka waa inaan reerihii loo cesho dawladda marka waa tafkiirka 100 sano ee soo socda loogu talagalay haddii la iska badbaadin waayo inuu bariga dhex noqdo laakiin ninkan oo wadaca khanfa la dhahdo oo nin istaraatiiji oo jasiira xukumi jiray kelmad cajiib ma ndoo diiray wuxuu yiri waxaynu ogeyn jiilka imika dhalinyarada muslimka ay carabtu ma aha jiilkii hore waxba la socon jiilkan waxba la socdaa marka wa aqbali karaan buu 10 sano in la waalo laakiin marka dambe arrintaas way isbedeli doontaa